waxay farxad u tahay dhammaan maamulka iyo macallimiinta iyo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Hiigsi gaar ahaan fasalka maanta qalin jibinaya oo xafladiisa meeshan lagu dhigayaa ayay farxad u tahay dhammaanteena waxaan leenahay qalin jibin wanaagsan waxaan leenahay horumar wacan waxaan leenahay horu socod wacan run ahaantii kooxdaasi waxay tahay masjidada aan dirayna mid kamida waa dufcadeynii saddexaad ee kan qalin jibisay dugsiga hoose dhexe sare ee Hiigsi waxaan ku soo bixinay juhdi dheer waxaan ku soo bixinay dadaal fara badan ayagana waxay soo bixiyeen dulqaad iyo adkaysi fara badan qalin jibin iyo iskuul bilaabo iskuma xigaan waxaa loo soo adkaystay arrintaasi maanta xafladda in la dhigo wax badan waxaa mahad ballaaran aan uga naqaynaa waalidkii nagula soo dadaalay sababtoo ah annagu arday waalid uusan nagula dadaalin kuma guulaysaneen in aan wax soo barno inaan ku soo dadaalno inaan maantoo kale u qabanno xaflad qalin jibina kuma guulaysaneen marka waxaan leenahay waalidkii asaga nagula soo dadaalay mahad ha u sugnaato aad iyo aad aan mahad celihaynaa kooxda qalin jibinaysana waxaan leenahay ayagana sidoo kale waxa waaye waxbarashadu kuma eka dugsi hoose dhexe sare way socotaa waxaa la yiraahdaa waxbarashadu waxay ka soo bilaabataa dhiribta hooyada mana dhamaato laakiin qofka bini aadamka ka dhamaada macnaha waxa uu jeedaa qofka waxbarashada asoo wili u dhimanta ay u dhintaa culimadu waxay tiraahdaa waxay ka soo bilaabataa min al-mahdi ila al-lahdi marka dhiribta canuga la dhalo waxbarasho u bilaabata waxbarashadaasi ma aha qalin buug iyo erasi loo yiraahdo laakiin hooyada u macallimo waxay bartaa hadalkii waxaad dareemaysaa canugu inuu bilaabayo inuu meel fiiriyo adduunkaas ku soo kordhay marka waxbarasho ku jira marka qofka waxbarasho waxa laga rabaa bilow ilaa uu ka dhinto cilmigu ma dhamaado marka waxa leenahay galaas qalin jibinaya hor socod wacan waxa leenahay waxbarashadiina ma dhamaan laakiin waxaad ku soo guulaysateen inaad ka soo gudubteen jaranjarti koobaad waxa idin dhiman jaranjarro badan oo aan dhamay karina marka ma dhamaynaysan waqtiga in siinayni laakiin ku dadaala inaa meel fiican gaartaan marka mar labaad iyo mar saddexaad oo hambaleynaynaa waxaan leenahay horumar fiican waxaan leenahay waxaan ku soo tarbiyeynay aqoon iyo akhlaaq iyo edeb meel alla ma tagtaan ogaada inaad tihiin risaalo amba inaad tihiin safiir oo dirsaday dugsi hoose dhexe sare Hiigsi waxaa la idinka rabaa edebtii akhlaaqdii aan ku soo tarbiyeynay iyo aqoontii inaad ka soo muuqataan meel alla meesha tagtaan oo nala soo waco la yiraahdo jaamacadaha markii arday fiican oo iskuul ka tago ee jaamacad u tago ardaygaasi hadduu kaalin galo haddii akhlaaqdiisa loo bogo la jeclaysto dabcan waa la soo xiriiraa iskuulada la soo xiriiraa horaan arki jirnay ardadii hore naga baxday dufcadii labaad iyo dufcadii koobaad baa ku soo aragnay dufcadan saddexaadna waxaan ka rajaynaynaa inay maaragtay meel ka si fiican gaarsiiyaan inay akhlaaqdooda waa la hagaajiyo ku dadaalaan in wax waa barteen inay waxbarasho hor u sii wadaan inay meelaha ay tagaan ay ka muuqdaan ka rajaynayna haddii ilaahay yiraahdo waxa waaye xilliguna waa kuleyl barnaamijkana waa bilow inaan ku soo dheeraado ma rabo waxaan leeyahay xafladeena oo noo furan tahay waxaan kaloon ka codsanayaa dhageystayaasha amba ka soo qaybgalayaasha xafladda inay adkeystaan xilli kuleylaha la joogaa laakiin waxaan nooga fiican walaalahayna amba caruurtayna inaan sugootino marka waxaan rajaynaynaa adkeysataan kuleelka inaad noo raali noqotaan haddii aan idinku casuumno meel aan munaasab ahayn waxaan rabnaa inaad noo sabartaan haddii ilaah yiraahdo xafladeena waa noo furan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh